السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسلام يا صاحبكي ولالك أما ولا شيء. مالك استوضح في الدنيا كشوكتو. مقال كان السجاي ولا صعدة. مقال الذي كود الرئي إنما أنت تكود صعب سنة برنامج شقطون بلاس. شقطون بلاس هدي أنا دور بحين دميسترن أنا تكهين خانته سعيت كي قطونتها واحد كيه لتونتها ور بحين دميسترن. سيقودنا وبرنامج أنا قلت لك على إنك كساعده وحنا عن كبر كنته وبرعتي الأوان شامعتها كقلن شيبسي كواسو دوني نسيف عنه بيران. وحوي سوقا شقوينك وحان رجينا بإذن الله تعالى كورس كان يسوي عن كود يارين دونا wax badanna aad ka faa'iidi doonto inta markaan ka imaado muuqaalkan isaga waxaan kaaga warrami doonaa arrin muhiim ah waxa muuqaalkan ciwaankiisu yahay maxay baad shaqo u heli laadahay inta badan waxa dhacda in shaqo la'aantu dalka ay aad iyo aad ugu baahsantay haddana dadku way u kala nasiib badan yihiin shaqo la'aanta oo qof baa shaqo ku hela bil mid baa laba bilood gudahood ku helay mid baa sanad ku helay mid baan weligiiba shaqo aan helin sidaa awgeed baa halkan waxaan kugu tilmaami doonaa arrimo ay tahay inaad iska ilaaliso si aanad u noqon qof shaqo la'aan ay ku dhacdo marka mawduucani waxa ku saabsan yahay maxay baad shaqo u heli laadahay kow ariga koobaad waxa uu yahay waxa aanad si fiican aanad u hagaajin oo aanad u diyaarsan CV qurux badan oo indhaha soo jiita CV-gu waa maxay CV-gu waa warqadda ay ku taalo dhammaan khibradaada dhammaan wixii aad soo bartay waxaad ku wanaagsan tahay waxaad aqoon aad leedahay hadad meelo kale aad ka soo shaqaysay waxyaalahaas oo dhan warqadda document-ka lagu riibay CV loo yaqaan sida ogeed haduu CV-kaagu khariban yahay rajin inaad shaqo fiican aad hesho sida ogeed inaad barataa waad ku qasbantahay habka loo diyaariyo CV-yada arrinka labaad aan gudbo arrinka labaad waxa uu yahay in waxa weeye aad tahay qof hansare leh marka kulay hansare ayaad leedahay amaba himilo fog baad leedahay kuma amaanayo maaha amaan laakiin aan si kala kugu dhigi way isla weynaan baan u jeedaa marka tahay maanta arday cusub hadda ka soo qalinjibay jaamacadaha dalka waana ogaataa in kuwii adiga ka horeeyay kuwii ka sii horeeyay intuba ay fadhiyaan sida ogeed waxaad ku dadaashay in shaqo hadii ay noqoto inaad halka hoose aad ka bilowdo iska ilaali inaad jeclaysato inaad ku bilowdo waxa weeye nin madaxa inaad ku bilowdo waxa weeye xafiis sare oo qalab ku dhameystiran oo miisasku meel walba yaalaan oo shaaha loo soo diirinayo loo keenayo ha ku fikirin inaad sidaa noqoto ha ku fikirin hadii aad wasaaradda ka shaqeyso agaasimo noqotid iyo wixii ka sii sareeya war shaqadu halka hoose ay ka bilaabantahay ku dadaal inaad halka ugu hoose shaqada aad ka bilowdo marka iska ilaali hanka sare iyo meel fiican baan ka bilaabay waayo arintaas waxay ka fadhiisinaysaa in shaqooyinka yar yar ay hoose halka sare ku gaarsiin lahaa inaad iska santaagto ay kugu sababi kartaa sida ogeed hanka sare iyo himilada fog ama si kale aan u dhigay isla weynaantu waa cadow aad iyo aad u daran oo dhaawici kara socdaalkaaga shaqo doon inta aad ku jirto aan ka socdo arrinka saddexaad muxuu noqonayaa arrinka saddexaad waa arrin kale isugu muhiim ah arrinkaas waxa weeye ma haysatid cid xidha ku ah hadii ana khaldanayn xidhaha waxa loo yaqaan waa qofka ku qabta waxa weeye ku haga ee gacanta ku qabtay hadaad khaldantayna darbaxa xidha loo yaqaan laakiin shaqada marka aan u jeedo reference baa Ingiriis loo yaqaan waxaan ka hadlayaa waa sidii odayga gacanta ku qabanayay kale arrintaasi waa arrin muhiim ah reference inaad hesho qof ku kaxeeya amaba ku tilmaama waa muhiim tilmaamtu waxay noqon kartaa goobta shaqada ayuu ku geeyay markaas oo dhan sida odayaasha ina kari qof shaqada oo u baahan yahay wax dhacaynta badan amaba waxay noqon kartaa in telefoon uu kala hadla ninkii madaxda ina ka halay shaqaaleysiyo waa dhowna lagu shaqaaleysiyo waxay noqon kartaa in amaan uu laga bixiyo oo la yiraahdo ninka hebel niyow ninkaasi waa nin wanaagsan aad shaqo siinaysan siiya idinka idin taala arrintaas laakiin anu waxaan idin sheegay ninkaasi nin shaqo badan yahay ama gabadhaasi gabadh hawlkar ay tahay inay aqoonyahan tahay ayaan ku sheegaya marka wuxuu noqon karaa marka reference ku erey fiican oo laga bixiyo marka waa inaad ku dadaasho cid talo ama amaan ka bixisa ama ku gacan qabata ama ku xiriirsiiso si fiican kuula kulansiisa tadiyowga aad ka rajeynayso inaad shaqo fiican aad ka hesho marka intaasi waxay noqon karaan reference inaad yeelataana waa arrin muhiim ah waana meelaha inta badan la isku dhaafay waana arrinka kaliya inta badan dadkeenu ay xoog saaraan kuwa kale inta badan way ka tagaan marka ku dadaal inaad qof reference ku noqdo oo xidha ku noqdo inaad ku dadaasho aan gudba arrinka afraad wuxuu ku leeyahay ka dhab maaha shaqo doonnimadu inta badan waxa la yaqaanaa dhalinyartu markay bil iyo 2 bilood ay shaqada ama raadinta iyo CV-yada iyo diyaarintooda ay wadaan inay marka daba iska qustaan marka iska ilaa inaad qusato ogowna arrinkan soo socda inta aad shaqo doonka aad tahay waa inaad naftaada u sheegtaa inaad shaqaynaysid ana ku celiyo inta aad shaqo doonka tahay waa inaad naftaada u sheegtaa inaad shaqaynaysid qofka shaqeeya muxuu sameeyaa todobadu kaca u diyaar garooba si fiican buu labistaa suuq u gala meeluhu doonay inuu shaqada geeyo ayuu tagaa
marka waa inaad maalin walba aad ula dhaqanta sidii qof shaqo tagaya ilaa inta aad shaqada ka helaysid iska ilaali fadhiga badan iyo niicida iyo cabaadka iyo dalkeena waa noocan iyo arrimahaas dadayga looseriska ee fashilan ayaa sameeyay marka ku dadaal in waxa weeye sidii shaqo aad ula dhaqantid oo arrintan arrin dhab ah inay ka noqoto lagaga baahan ugu dambeyn waxa aan kaaga digayaa oo inta badan shaqo ka reebi kara waxa weeye kalsooni la'aanta inta badan waxa dhacda qofka markuu shaqo la xayisiyo uu imanayo ee uu xareeyo ee la aqbalo interview wax la yiraahdo la hor fadhiista interviewgu waa wareysi waa lagu wareysanaya wixii warqadan ku yaalay hadalkaagu inay isleeyihiin marka qofka hadii laga arko inaan ahay qof isku kalsoon qof waxa weeye aamusan qof aan shaxshax badan aan lahayn qof cabsi ay ka muuqato inta badan ciidama aqbasho marka ku dadaal inta aad ku jirto hawshan iyada in aad muujisid kalsooni ah inaad shaqo heli doontid kalsooni ah in shaqo fiican aad heli doonto kalsooni ah inaad ka sarreyn doontid asxaabtaadii iska hurda ama iska fadhida ee aan waxba qabanayn arrimaha kalsoonidaasi waxay ka saacidaysaa inaad si fiican shaqo wanaagsan aad hesho maalinta arinta iyada ay ku saacidana si fiican baad u dareemi doontaa taladaydan iyo macnaheedu insha Allah taala halka waxaan kugu soo gudbiyay tiraba 5 arin oo rajaynaya inay ka saacidayaan sidii aad waxa weeye aad u heli lahayd shaqo fiican inta aad ka bixin waxaan jecelahay inaan ku ogeysiyo barnaamijka shaqadoon waa course aan ugu talagalay tababar ardayda jaamacadaha dalka ka qalin jebisay kuwaas oo aan ku tababari doono waxyaalo kala duwan sida CV-da loo diyaarsado sida interviewga loogu guuleysto hababka baraha bulshada loogu shaqeysto yani waxaan ka warramayaa CV-gaaga aad ugu dhisi kartid arrimahaas iyo arrimo kasii badan iyo hababka kala duwan ee loo gaarsado shaqooyinka goobaha shaqooyinka loogu tago waxyaalaha waxaad ka heli doontaa course-ka kan isaga wixii warbixino dhammaystiran waxaad ka heli doontaa comment-ka ugu horeeya sidaa ogeyd waxaan rajaynayaa inaad kusoo biiri doontid asxaabtaadana aad la wadaagi doontid intaynu ku kulmayno muuqaalkan kan xiga waxaynu ku kala teganaa sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته